Asalaamu calaykum guys, iska warama fiicantiin soo dhawaada channelka saaxiibada ku cusub tahay subscribe saar like saar si sheegare maanta waxaan tusaale qaabka u bedeli lahayd sawirka background ku saaran qaabka u bedeli lahayd adigoo isticmaalaya Adobe Photoshop marka hore waxaad soo furanaysaa Photoshop haddaan soo furanay file ku dhufanaysaa file ma ku dhufasto open ku dhufanaysaa open ku dhufato wuxuu geynayaa file computerkaaga filekiisa wuxuu geynayaa marka waxaad raadinaysaa sawirkaada meel ku jiray double click ah marka siinaa oo isticmaalaya mouse left click and double click siinaa sawirkiisa automatic ah soo galaya marka asxaabta sawirka uu soo galaya sa arkaysiin marka qaab badan u bixin karto sawirka backgroundkiisa marka maanta laba qaab aan ku tusaaya horta qaabka horeeyo waxa ku dhufanaysaa selection tool ku dhufanaysaa ma ku dhufato kadib waxa ku dhufanaysaa select and subject meesha aad mouse ku aadiye marka meesha ku dhufato ki automatic Photoshop ayaa sawirka background ka jaraysa automatic adigu wax shaqaban u awlaysid click bas siinaysaa sugaysaa waxay sugaysaa sawirka saas jaraya marka ki si automatic ah Photoshop ayaa jarayso qaabkan waxa la yaabaa inuu sawirka si fiican u jaro waxa la yaabaa inuu sawirka meel ka badboodo marka dib ma la arkayna qaabka uu jaro maska ku dhufanaysaa dhaqanka siiso saarkaysan sawirka backgroundkiisa uu jaraya saarkaysan sawirka backgroundkiisa uu jaray inta ku dhufan kartaa solid color in ku dhufanaysaa color karta doon kartaa artina sawirka backgroundkiisa geliso marka aan doorana okay ku dhufanaa kadib leeyadan yani koos marnaa leeyada sawirka ku jiray saada arkayso si fiican u soo baxay si fiican u jar qaabkan waa qaab kale loo tusana insha Allah hadda zoom gareeyo sawirka si fiican u jaray arkayso sawirka si fiican u jarmay marka qaab kale hadaan ku tuso hadaan sawirka si sawir ku celiso xataa Ctrl+0 arkan sawirkiisa soo ku laamay zoom ku ka baxay marka hadaan sawir ku laabto ku dhufana Ctrl+Z marka hadaan ku dhufanaya lasso tool ku dhufana toolashan ku diiwaan inta tustana magacoodii shaqada qabtaan select and subject ku dhufanaya hadana select and subject ku dhufto waxaan ku sii dhufanaya select subject waxay sugaysaa saarkaysan si fiican u sawir ku jaray marka okay ku dhufana hadii kale inta ku sii dhufatana inta ku dhufan kartaa contaminate colors ku dhufan kartaa click okay dhig kartaa marka inta ku dhufanayo waa si fiican buu jaray si automatic ayuu si fiican u jaray okay ma ku dhufanaa sababta arkaysan sawirka si fiican u jarmay hadana background ka bedesho file ku dhufanaysaa file ma ku dhufato sawirka background ka raadinaysaa aad gashan lahayd kan intuu jira downloads ku jira inta ku dhufanaa sawirkan jeclahay inaan background ka dhigo kan drag and drop and jida Photoshop ku paste karana marka save data انت save كده diyaar waay caadi ku soo galaya masha asxaabta soo dhawaanaya leeyahay gacmo furan soo dhawaada insha Allah tutorial ku saabsan Photoshop inta kala socon doontaan marka insha Allah soo dhawaada leeyahay wixii Photoshop ku saabsan inta kala socon doontaan welcome gacmo furan soo dhawaada